Xisbiyada siyaasadeed ee ku bahaysan madasha xisbiyada qaran ayaa ku yaboohay $200,000 taas oo ay sheegeen inay ugu talagaleen dadka ay saameeyeen fatahaadaha ay sameeyeen webiyada Shabeelle iyo Jubba. Gudoomiyaha xisbiyada madasha qaran, madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay madashu inta ay waday ururinta lacagtaas inay ahayd muddo kooban isla markaana ay u soo xarootay $200,000 oo ay doonayaan in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka soo rogmaday. Walillahi alxamdu runtii dadaalkaas dadaal miro dhal ah noqday waqtiga koobnaay iyo duruufta dalka dhaqaale ogtiina aad u yareed madasha waxa u suura gashay lacag dhan $200,000 inay soo aruuriso. Walillahi alxamdu ilaaha ku mahadsan runtii dadkii ka qayb qaatay ama dadaalka ku bixiyeen aadan ugu mahad celinaynaa. Qof walba oo ka qayb qaatana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu waxa uu haystana u barakeeyo, miisaanka aakhirana ilaahay u saaro, dadka loo wadana ilaahay inuu ku anfaco ku deeqo yani ilaahay ka baryaynaa. طبعا baahida dadka lama dabooli karo Soomaalida haddaan nahay marna sida badan biyaha saan qaada marna abaaraan la il daranahay taasna waxay muujinaysaa inaanan ku mashquulsanayn kor u qaadida nolosha maxaa yeelay biyuhu waa nicmo haddii laga faa'iideysto laakiin waxay isu bedelayaan nicmo waxa hadda dhaca marka insha Allah waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda inaan aad maskaxda ugu hayno inaan u helno xal joogto ah fatahaadaha dhaca maxaa yeelay waa wax la og yahay inay dhacaan iyo sidaas oo kale abaaraha dhaca in adduunkuba intiisa badan waa ka gaashaantay in laga gaashaanto sida madaxweyne xasan walaalkay uu sheegay dad ka tirsan madasha iyo dad aan ka tirsanayn waa ka qayb qaateen runtii dadka Soomaalida karamkooda iyo sakhinimadooda ayay markhaati ka tahay arrintan inay isu gurmadaan xilliyada adag xilli kooban ayaa lacagtaas lagu soo aruuriyay xibnaha madashana waxaan rabaa aad iyo aad inaan uga mahad celiyo xilliga kooban iyo siday u dadaaleen. Shir jaraa'id oo Muqdisho ay ku qabteen ayay ku sheegeen in laba guddi ay u kala direen magaalooyinka Beledweyne iyo Bardaale waxayna sheegeen in labadaas guddi ay ugu talagaleen inay kaalmadan gaarsiiyaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka soo rogmaday. Ay magacawday oo gudoomiyaha madashu saxiixay laba guddi oo fatahaadahaas gargaarkaas uga wakiil noqda madasha xisbiyada qaran waxayna yihiin gudiyada oo ugu horeeya gudiga Hiiraan Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle loo magacaabay xubno gudi ka kooban 12 xubnood oo ay ugu horeeyaan xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi oo nala joogta halkan waatana ayaa gudoomiye ka ah xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed waa gudoomiye ku xigeen oo wuxuu jiraa Hiiraan buu jiraa Beledweyne uu jiraa xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Muhammad waa kana Cabdirasaaq Dheere waa gudoomiye ku xigeen xildhibaan Khaliif Cabdi Umar waa xubin xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene waa xubin waa u jeedin mudane Abshir Axmed Cabdulle waa xubin mudane Cabdinaasir Muhammad Shirwac waa xubin mudane Maxamed Ibraahim Cabdulle waa xubin mudane Cigaal Cabdulle Cilmi waa xubin mudane Muuse Cabdi Daahiye waa xubin mudane Khadar Axmed Cabdulle waa xubinta u dambeysay oo 11aad oo gudiga fatahaadaha gurmadka fatahaadaha Beledweyne 11kaas xubnood oo xildhibaano ay ku jiraan 5 xildhibaan oo golaha shacabka ayna hogaaminayaan ugana wakiil yihiin madasha gurmadka fatahaadaha Beledweyne iyo gargaarka dadka waan rajaynaynaa maalmaha soo socda ayagoo halkaas hawl uga jira inaad arki doontiin xubnaha kale ee loo magacaabay fatahaada Bardaale gurmadka fatahaada Bardaale waa 7 xubnood oo hogaaminayo gudoomiye u yahay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waa kan xildhibaan golaha shacabka gudoomiye hore golaha shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliya waxa ku xiga Maxamed Nuur Madoobe Nuunow waa gudoomiye ku xigeen asaguna wasiir Busood Wasti ka soo noqday waxa ku xiga senator Ilyas Ali Xasan waa jooga waa gudoomiye ku xigeen isna waa senator golaha aqalka sare ka tirsan waxa ku jira xubinta afraad waa xildhibaan Aamina Xasan Cali waa xubinta shanaad waa xildhibaan Yacquub Maxamed Cali waa xubinta lixaad waa xildhibaan Cabduqaadir Shariif Xasan waa
xubinta toddobaad oo ugu dambeysa waa mudane cali cabdi maxamed oo ah isna xubin. halkaasna waxaa ku jira 5 xildhibaan oo senator aqalka sare ku jiro iyo 4 kale oo golaha shacabka ah iyo 2 xubnood oo mas'uuliyiin ka soo noqday iyaguna South West. ayaguna waxay madasha wakiil uga noqon doonaan 7daas xubnood insha Allah gurmadka fatahaada. bishii tagtay ee Oktoobar ayuu webiga Shabeelle waxa uu ku fatahay magaalada Beledweyne iyadoo 3 meelood magaalada uu buuxiyay webiga, waxaana dadkii ku dhaqnaa magaalada ay u baxeen buuraleyda iyo goobaha kale ee ay gabaadka ka heli kareen.